munaasabad lagu daafurayay warshada dharka ee labis ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Istanbul ee dalkan Turkiga. Qeybaha kala duwan ee jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkan ayaa lagu marti qaaday munaasabada furitaanka xafladan. Gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga Mudane Sheekh Maxamed Maxamuud ayaa xariga ka jaray warshada oo si wada jir ay u leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed iyo kuwa Turkiga. shirkadani waxa ay soo saari doontaa dharka noocyadiisa kala duwan sida kuwa ragga, dumarka iyo caruurta, sidoo kalena dalabyada dharka ciida ay dabooli doontaa. waana shirkadii ugu horeysay oo Soomaaliyeed oo laga hirgeliyo dalkan Turkiga. gudoomiyaha shirkadda Daahir Cali Kulmiye ayaa ugu horeyn goobta hadal ka jeediyay. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel baa joogtaan waa salaamay waxaan ku salaanay salaanta salaanka bacdi walaalayaal waxaan rabnaa inaan la wadaagno insha Allah taala. maanta waxaan daafurnay warshada labis ka furnay wadanka Turkiga magaalada Istanbul. Abubakar Maxamed Umar oo kamid ah xubnaha boorka shirkadda ayaa dhankiisa hadalka qaatay. وشهن وحي أهيد إن مكة وجوهي أن دافعنا ورشد أو دميسترن لكن مكة أن أرجني باهذا درك عيدة أي وحن دردر جلنا وحيته هاي إن دافعنا ورشد قيبت وجوهي أو صار دون تضمان درك عيدة سبل شدين أي وعيدان سي فرحت له إن شاء الله تعالى جورد وحنفردنا وحيته ورشد قيبت هذه اللبات على صعود. قدوميها جنعسة الصوماليات مجلة أنكرا مدن الظاهر أي سودوي أفريتانكا شركة dadkii soo qaban qaabiyay ee isku howlay fikirka la yimidna waxaan leenahay Allah idin barakeeyo dadka martida ka soo qayb gashay gudoomiyihii jaaliyada odayaashii dhaqanka iyo dhalinyaradii dhammaan waxaan leenahay Ilaahay ha barakeeyo. munaasabada waxaa soo gunaanaday oo codbaahiyaha lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga Mudane Sheekh Maxamed Maxamuud Maxamed. wadin salaamaya kulligiina runtii waxaan aad ugu faraxsanahay runtii khudwa oo waxa sameeyeen runtii aan wali la sameeynin oo u baahan macnaha in la barakeeyo ma sha Allah tabarakallah ayna hirgeli doonto insha Allah taala because dhinaca sanaacada runtii aadan ugu liidanay dhinaca bay tahay ganacsiga maarta ka iimaanay China ka iimaanay Dubai in maanta intuu u soo wareego runtii inaad u noqotaan asbaq dadka ugu hormaray oo maartay fikirkaas hormariyay runtii waxay tahay waa arrin aad iyo aad u qiimo badan.